kulanti wanaagsan halkan waa Garaa TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn shirka golaha wada tashiga qaranka ugu dambeyn ka furmay magaalada Muqdisho ee madaxda maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo dood adag la tagay kulanka oo lagu jiheynaya xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliland oo ceyrisay wakiilka Taiwan ee Hargeysa kadib markii uu tagay magaalada Laascaanood xaraashaysana beer u lahaa arrintan oo xumeyn kartay xiriirka Taiwan iyo Soomaaliland guddiga doorashooyinka dalka oo si cad u sheegay in adag tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof cod oo quusna ka muujiyay qorshaha ay wadada dawladda federaalku wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi uu guuraya furimaha dagaalka kulan xasaasi ahna kala yeeshay safiirka Mareykanka howlgalka labada shabeelle ee lagu ciribtiraya argagixisada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo canan indhaha ka saaray xilka qaadisna ugu hanjabay gudoomiyaha gobolka Banaadir kadib arrin halis oo ku soo korortay caasimadda qodobadaas aad ku daawan doontaan warkay baweynaha hadii laga helo markale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsanayaan idiin soo gudbin doonaa seesha wareen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabata daawashada muuqaalka macadka diiniga ah ibnu Cabbaas Islaamic Online wuxuu ugu bishaareynaya ardayda qurba joogta in hab online ay uga baran karaan quraanka kariimka hikaada siirada nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee axaadiista sixidda carabka iyo af Soomaaliga macadku wuxuu ugu barbaarinayaa ubadka diinteena suuban ee islaamka iyo afkeena hooyo ee Soomaaliga hab casri ah oo online ah goob kasta iyo goor kasta wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda aynu ku bilownaa shirka golaha wada tashiga qaranka ayaa ugu dambeyn ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada guddoonka gobolka Banaadir iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana kulankan oo horay laba jeer u baaqday diiradda lagu saaraya intiisa badan xaaladda siyaasadeed waddanka oo xilligan jaha wareer badan wajahaysa madaxda dawlad goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle hogaamiyaha maamulka ICC qaatumo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka soo qayb galay kulankan oo furitaankiisa laga sheegay in laga filayo natiijo ballaaran oo ku saabsan sidii dalku hore ugu dhaqaaqi lahaa isla markaana looga gudbi lahaa khilaafaadka siyaasiga ee xilligan jira furitaanka kulanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxda maamulada iyo mas'uuliyiinta kale ee kulanka ka soo qayb galay waxa uu jeediyay khudbad xaaladda guud ee dalka uga warbixiyay waxa sidoo kale rajo wanaagsan uu ka muujiyay in kulankan natiijo wax ku ool ay ka soo baxdo isla markaana wuxuu ka bedelo kulankan xaaladda siyaasadeed ee dalka oo xilligan jaha wareer badan ku jirta maadaama khilaafaad xooggan ay jiraan oo siyaasadda dawladda ay ka soo horjeedaan madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo si weyn u diidan tilaabooyinka dawladda ay qaaday oo arkaan inay yihiin kuwa aan shaqayn karin dalkana god dheer ku siiradaya dhankooda xogaha soo baxaya waxay tilmaamayaan in madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed dood adag ay la tageen fadhiga isla markaana ay rabaan in kulamada xiga ay miiska soo saaraan doodoodan oo ku salaysan in loo fasaxo inay qabsadaan doorashooyinka maamuladooda maadaama muddaxileedkoodu uu dhammaaday wax maandheed ahna aysan ku joogin dawlad goboleedyada hadda ay joogaan arrintan ayaa dood adag ka dhalin karta kulanka golaha wada tashiga qaranka waxaana suurtagal ah haddii la isku fahmi waayo in fashil ay keento madaxda maamul goboleedyadana si la mid ah hogaamiyaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Mudube ee fadhiga iskaga baxaan taasoo dhabar jabin doonta dhammaan qorshayaasha siyaasadeed ee dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadaal xoogan gelinaya in madaxda maamul goboleedyadan uu ku qanciyo in wax doorasho aysan aadin ee ay kala shaqeeyaan sidii dalka doorasho qof iyo cod ay uga qabsoomi lahayd iyadoo dhankeeda filla Soomaaliya ballan qaadaysa inay ka shaqeynayso xubnahan sidii loogu sahayn lahaa dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyo Lafta Garan labaduba waxay aaminsan yihiin in suurtagal ay tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in saacadaha ugu dambeeyay uu ku soo jeesto isla markaana uu ka taqaluso hogaaminta labadan maamul goboleed uu kaansado shakhsiyaad isagu aaminsan yahay inay ka caawin karaan soo laabashadiisa maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhankiisa cabsi uu ka qabay inay dhabar jabiyaan nimankan oo siyaasadda muddo ku soo jira isla markaana ka mid ahaa xubnihii waqtiga ugu dambeeyay la dagaalamay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la sheegay inuu diyaarsaday shakhsiyaadkii lagu bedeli lahaa labadan madaxweyne dhankoodana filla Soomaaliya waxa cabsi badan ay ka qabtaa in habeen madow ay guddi doorasho ku dhawaaqaan isla markaana ballanta ay uga baxaan oo ay qabsadaan doorashooyin u gaar ah raacaan nasabka madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland si kastaba kala shakigaas xoogan oo jira ayaa shirkan golaha wada tashiga qaranka uu furmay waxaana si weyn isha loogu wada hayaa natiijada ka soo bixi doonta iyo go'aamada lagu gaari doono inkastoo ay u badan tahay in wax cusub aysan soo kordhin doonin xubnahan oo isla natiijo kuwii hore ay golaha wada tashiga qaranka soo saareen ay raaci doonaan
maadaama wax cusub aysan jirin oo madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland labaduba fadhiyada ay ka maqan yihiin. shirkan waxaa ka cusub oo kaliya inuu ku soo biiray Firdhiye oo ah madaxweynaha maamulka SSC Qaatumo oo dhawaan aqoonsi rasmi ah ay siisay dowladda federaalka ee Soomaaliya. lana aaminsan yahay in fadhigii koobaad ee kulanku u baaqday in qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyadu ay ka cagajidaan ka qaybgalkiisa kulanka, waxaana Firdhiye iyo maamulka SSC Qaatumo dhankooda aaminsan yihiin in fursad weyn ay u tahay kulankan inay ka soo qayb galaan. dowladuna waxay sheegtay in SSC Qaatumo ay tahay buundada la iskaga gudbi lahaa amaba isku xir lahaa siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan Somaliland amaba wadadii looga taqalusi lahaa ictiraafka muddada badan ay raadinaysay Somaliland oo fadhigoodu yahay Hargeysa. qaybihii hore warka Gratiif ayaa daawanaysaan. xukuumadda Somaliland ayaa ceyrisay wakiilka jasiiradda Taiwan u fadhiyay magaalada Hargeysa kadib markii dhawaan uu tagay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaas oo kulan uu kula qaatay hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo Cabdulqaadir Firdhiye. ila waradi lagu kalsoon yahay ayaa Gratiif waxay u xaqiijiyeen in Somaliland wakiilka Taiwan ay u qabatay 72 saacadood inuu uga baxo magaalada Hargeysa. sidoo kalena waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan lala socodsiiyay ficilka uu sameeyay danjirahan, iyada oo Taiwan ay sheegtay in arrintaas aysan la socon isla markaana tilaabo dhankeeda ay qaadi doonto. wakiilka Taiwan ee la ceyriyay ayaa hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo wuxuu kala hadlay qaabka ay wada shaqayn dhow u yeelan karaan Taiwan iyo sidoo kale maamulka SSC ee dhawaan aqoonsiga rasmiga ay siisay dowladda federaalka Soomaaliya. xilli aad ay u soo xoogeysanayaan wararka sheegaya in Shiinuhu uu habeynayo isla markaana taageero xoogan uu siinayo maamulka Curdunka ee SSC Qaatumo ee fadhigiisu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wakiilkan ayaana la sheegay inuu u tagay magaalada Laascaanood si qorshaha Shiinaha uga hortagay isla markaana uu abuuray xiriir toos oo dhaxmara Taiwan iyo maamulka SSC Qaatumo. safarka wakiilka Taiwan oo aan la socodsiin wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa si weyn ay uga carootay xukuumaddu, waxaana ay ku tilmaantay mid kala goynaya Somaliland. wakiilka ayaa u ballan qaaday hogaamiyaha maamulka Qaatumo garab iyo taageero kala duwan, sidoo kale waxa uu ku wareejiyay dhaqaalo caawimaad ah sida ilo hoose ay sheegeen inta kulanku u socday, waxaana tan Somaliland ay u aragtaa inay tahay tilaabo gardarro ah oo wakiilka Taiwan ee Hargeysa uu qaaday. isla sidan oo kale ila waradyada xogta inoo soo gudbiyay waxay noo xaqiijinayaan in maxkamadda sare iyaduna ay soo saartay amar lagu xaraashayo beer weyn oo degmada Arabsiyo ee Gabiley uu ku lahaa wakiilka Taiwan u joogay Somaliland ee la eriyay, taas oo uu siiyay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi. cayrinta Somaliland ee wakiilka Taiwan ayaa soo dadejin karta khilaaf hor leh oo ka dhex qarxa Somaliland iyo jasiiradda go'aan-goosadka ka ah dowladda Shiinaha ee Taiwan, kuwaas oo xiriirkooda oo soo bilaabmay sanadii 2020 marar badan si weyn ay uga caroodeen dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha oo labadan dhinac ay go'aan-goosad ka yihiin. Taiwan ayaa u xaqiijisay Somaliland in ay soo bedelayso wakiilkan, isaga oo la filayo in toddobaadyada soo socda uu Hargeysa yimaado wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan, inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya safarkiisa ay xanibtay isla markaana ay gebi ahaanba mamnuucday in baasaboorka Taiwan lagu yimaado gudaha Soomaaliya, taas oo hakisay socdaalkii wafdiga wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan uu hogaaminayo ay ku imaan lahaayeen magaalada Hargeysa. hadda waxa isha lagu wada hayaa tilaabooyinka dhankooda Taiwan ay qaadi doonaan iyo arrintan waxay u dhimi karto xiriirka labada dhinac ay leeyihiin, inkasta oo sanadihii la soo dhaafay si weyn ay iskugu soo dhawaanayaan labadan maamul. si weynna waxaa loo wada xasuustaa in xilligii Muuse Biixi Taiwan ay ku taageertay Somaliland tilaabooyin ay ku qalqalgelisay hawada Soomaaliya si gooni ah tilaabooyinka la iskugu hagay diyaaradaha marayay hawada waddanka, taasoo keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaado tilaabooyin caqabad ku noqday Somaliland oo ugu weynayd in gebi ahaanba laga guuro hanaanka maamulka hawada ee Somaliland marka hore qaybta ay ka ahayd. ilaa iyo haddana diyaaradaha ka degaya magaalada Hargeysa waxaa laga xukumaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, taasoo gebi ahaanba gacanta Somaliland ka bixisay nidaamka maamulka hawada ee qaybta ay ka ahayd. waxaa dad badan oo diblomaasiyiin ay u arkaan tilaabooyinka Muuse Biixi iyo maamulkiisa ay qaadeen ay ku carqaladeen hawada Soomaaliya in guuldaro weyn Somaliland ay u soo hoysay, meeshana ay ka baxday kaalin weyn oo ay ka haysatay nidaamkan oo Somaliland iyadu deegaanadeeda diyaaradaha imaanaya si toos ah ula socon jirtay aana laga maamuli jirin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. hadda guud ahaan hawada Soomaaliya diyaaradaha soo galaya waxay ku qasban yihiin inay xiriir la soo sameeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, haddii kale waxaa dowladda ay ka qaadi kartaa tilaabo adag, waxaana tani ay keentay in marar badan diyaarada laga joojiyo dhinaca Somaliland, iyadoo hadda ay ugu dambeysay socdaalka wasiirka arrimaha dibadda Taiwan iyo wafdigiisu ay rabeen inay ku tagaan Hargeysa ee la joojiyay kadib markii la mamnuucay baasaboorka Taiwan in lagu imaan karo waddanka. qaybihii dhexe warka Gratiif ayaa daawanaysaan.
guddiga doorashooyinka dalka ayaa rajaxumo ka muujiyeen doorasho qof iyo cod dalka laga qaban karo marka la eego madaxweynaha dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud u dhiman dhaqaale la'aanta xooggan ee dalka haysata iyo sidoo kale caqabado waaweyn oo kale ay sheegeen inay ku horgudban yihiin in doorashooyinkan dalka ay ka qabsoomaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in la bilaabay qorshaha doorashada qof iyo codka ah hase yeeshee ay jiraan caqabado badan oo fashilin kara doorashada waqtiga inay ka qabsoonto waxaana quus uu ka muujiyey rajada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka leedahay in doorashada dadweynaha dalku uu aado gudoomiyaha guddiga doorashooyinka wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ugu dambeysay shaqo noocan ah waa doorashooyinka qof iyo codka ee 1969 muddadaas dheer ee dalku burburka uu ku jirayna bulshada Soomaaliyeed aysan arkin wax doorasho dadweyne ah sidoo kalena qalalaasii siyaasadeed ee dalku soo maray kala aamin bixitaan badan oo abuuray waxa uu tilmaamay in bulshada u baahan yihiin wacyigelin ballaaran sidoo kale wuxuu sheegay in loo baahan yahay dhaqaale fara badan oo ku baxaya doorashadan qof iyo codka ah kaas uu muujiyay hadda awoodeeda inaysan lahayn dowladda federaalka Soomaaliya si ay u daboosho qarashka loo baahan yahay si doorasho dadweyne loo qabto caqabadahaas haddii aan laga gudbin wuxuu sheegay in xaaladdu ay adkaan doonto aysan sahlaneyn in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod waxaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka uu tilmaamay in marka laga soo tago degmooyinka gobolka Banaadir hadda laga bilaabay diiwaangelinta codbixiyaasha ay gaarsiin doonaan caasimadaha dowlad goboleedyada taabacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay bulshadu isku diiwaan geliyaan loogana diyaar garoobo doorashada qof iyo codka ah marka la eego khudbadda uu jeediyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxay muujinaysaa in rajo badan uusan ka qabin in doorasho qof iyo cod waddanka ay ka qabsoonto hase yeeshee wuxuu muujinayaa in weli ay jirto kalsooni ah in meelaha qaarkood doorasho laga qaban karo caqabada ugu weyn ee xilligan jirta waa dhaqaale la'aan beesha caalamka ayaana dib uga guratay maalgelinta dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintan oo loo arkay in cadaadis xooggan lagu saarayo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud si ugu dambeyn sagxadda loogu soo dhufto isla markaana ay u joojiso qorshayaasha doorashooyinka qof iyo codka iyo la dagaalanka argagixisada ay ugu weyn yihiin dhinacyada dowladda Soomaaliya hadda laga carqaladeynayo waxaa ka mid ah maalgelinta howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee EUSOM oo markii hore dhammaan dhaqaalihiisa la ballan qaaday hadda se looga baxay dowladda oo taageero loo leeyahay maadaama dowladda Mareykanku ay xujo ka dhigtay in haddii la rabo taageerada inay qayb ka qaadato dowladaha Yurub ay bixiyaan saami la mid ah kan Mareykanku uu bixiyo dowladaha reer Yurub dhankoodana waxa ay xujo ka dhigaan in haddii la rabo dhaqaale inay ku bixiyaan howlgalkan oo ay taageeraan ay dhankooda ku soo biiraan dowladaha qaaradda Asia sida Russia iyo Shiinaha oo labaduba saaxiib dhow la ah dowladda federaalka ee Soomaaliya isku tuurtuurkan ayaa keeni kara in dhaqaale la'aan xooggan howlgalkan ay soo wajahdo taasoo fashilin karta shaqada howlgalka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee EUSOM oo dowlado cusub oo Masar qayb ay ka tahay ay ku soo biiraan si kastaba Soomaaliya ayaa xilligan xaalado adag la daala dhacaysa waxaan ugu weyn khilaafaadka siyaasiga ah iyo la dagaalanka argagixisada beesha caalamku mid ka mid ah qodobada ay cuskanayso ay u diidan tahay socoshada qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaa qayb ka ah in siyaasadda aan heshiis lagu wada ahayn aan dalkan doorasho qof iyo cod looga qaban karin iyadoo xujo ka dhigaysa in la qanciyo madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka oo dhankooda ka soo horjeeda doorashada qof iyo codka ee filla Soomaaliya ay sheegteen dalka ay ka qabsoomayso labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland Axmed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni waxaa labaduba hore ugu dhawaaqeen inay xiriirka u jiraan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana aysan la macaamili doonin ilaa iyo inta madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dib ugu soo laabanayo waxyaabihii heshiiska lagu wada ahaa iyagoo xujo ka dhigaya dhankooda in gebi ahaanba meesha laga saaro go'aamada lagu gaaray shirka golaha wada tashiga qaranka Siciidan intuu maqnaa iyo in Axmed Islaam Axmed Madoobe dhankiisa uu rabo in loo xalaaleeyo natiijada doorashada uu ku qabsaday magaalada Kismaayo ee qaadacday dowladda federaalka ee Soomaaliya abuurtayna dagaalka siyaasadeed adiga u dhaxeeya isaga iyo dowladda ee gaaray in xayiraado dowladdu ay ku soo rogto Jubbaland Axmed Madoobe ay u jarto waaran soo qabasho garaatiif ay daawanaysan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ku wajahan furimaha hore ee dagaalka si halkaas uga hogaamiyo howlgallada lagu ciribtirayo argagixisada ee ka socda labada shabeelle iyadoo dhanka kale la filayo in mas'uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda federaalka ay furimaha dagaalka u guuraan isla markaana ay ka qayb qaataan howlgallada la dagaalanka argagixisada iyo dabarjaridooda xubnaha mas'uuliyiinta ah ee wehelin doona wasiirka gaashaandhigga waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada xoogga dalka odawaa Yuusuf Raagi iyo mas'uuliyiin kale oo dhankooda qayb ka noqon doona howlgelinta howlgallada ballaaran ee dowladda federaalku ay rabto in gebi ahaanba looga takhaluso joogitaanka kooxda ee labada shabeelle iyo sidoo kale diyaarinta howlgallo ballaaran oo dib loogu laabanayo degmooyinka argagixisadu ay soo gashay ee ay kala wareegtay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo ay ugu waaweyn yihiin aadan yabaal iyo sidoo kale masaajid calguduud oo dowladda awood badan xilligan ay saarayso sidii dib loogu laaban lahaa gacanta argagixisadana looga saari lahaa
axmed macalin fiqi waxaa dhanka kale saacadii lasoo dhaafay kulamo xasaasi ah uu kala yeeshay arrinta la dagaalanka argagixisada safiirka maraykanka uu jooga soomaaliya iyadoo la isla meel dhigay in la xoojiyo dagaalka argagixisada sidoo kalena dowladda maraykanku ay ballan qaaday inay sii wadi doonto duqeymaha dhinaca cirka ay ku taageerto ciidamada dowladda wasiirka ayaa uga mahad celiyey safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya taageerada maraykanka ee howlgallada ka dhanka argagixisada gaar ahaan kooxda shabaab waxaan ku faraxsanahay inaan la kulmo safiirka maraykanka ee soomaaliya maraykanka ayaa weli ah saaxiib dhinaca ammaanka ka taageera soomaaliya waxaan si weyn uga mahad celinayaa taageerada joogtada ah ee ayna siiyaan waxaan rajaynayaa in sare aan u qaadno xiriirka difaaca annaga oo iska kaashanayna dagaalka ka dhanka ah shabaab iyo sidoo kale isis ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga kadib kulanku la qaatay safiirkan qoraal kusoo daabacay bartiis eegas ee horey twitter loo oran jiray maalintii ugu horreysay ee xafiiska uu ka shaqo bilaabay wasiirka gaashaandhigga axmed macalin fiqi waxa uu ballan qaaday inuu xoojin doono wada shaqaynta kala dhexaysa saaxiibada soomaaliya ee dhanka ammaanka sidoo kale axmed macalin fiqi wuxuu ballan qaaday inuu kaalin xoogan ka ciyaari doono dabarjaridda argagixisada iyo sidii guulo waaweyn looga gaari lahaa dagaalka xilligan dalka uu ku jiro ee kooxda lagu soo afjarayo isagoo sheegay in furimaha dagaalka uu guuri doono oo kaalin muuqato uu ka ciyaari doono sidii howlgallada ciidamada loo sii xoojin lahaa waxyaabay axmed macalin fiqi khudbaddii xilwareejintiisa uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa in si dhow uu yaqaano argagixisada iyo sidoo kale dhagarahooda isla markaana soo magacaabistiisa wasaaradda gaashaandhiggu caqabad weyn ay ku noqon doonto argagixisada si kastaba hadda waxaa isha lagu wada hayaa howlgallada ballaaran ee abaabulayso dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo la rabo in dib loogula wareego degmooyin iyo deegaano muhiima oo ka baxay gacanta ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka bilihii lasoo dhaafay isla markaana dhabarjab xoogan ku noqday howlgalladii ballaarna ee ka socday labada shabeelle iyo qorshihii dowladda u lahayd in gebi ahaanba argagixisada shabeellooyinka hiiraan ilaa iyo sidoo kale deegaanada dowlad goboleedka galmudug laga sifeeyo si ugu dambeyntii loogula dagaalamo dhinaca dowlad goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed oo saldhigyada ugu waaweyn ay argagixisadu ku leedahay ugu dambeyntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa canan indhaha ka saaray xilka qaadisna ugu hanjabay guddoomiyaha gobolka banaadir amiir oo la sheegay in kulan degdega uu kula yeeshay madaxtooyada dalka looga arrimiyo ee villa soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir waxaa madaxweynuhu uu ku canaantay cabasho ka timid dhinaca shacabka oo ku aadan nadaafad darro gobolka banaadir kusoo korortay sidoo kale in falal amni darro degmooyinka qaarkood laga soo wariyey kuwaas oo wax ka qabashadooda ay ka jawaabi waayeen maamulka gobolka banaadir madaxweynaha ayaa si cad ugu sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir in haddii nadaafadda magaalada iyo cabashooyinka kale ee jira degdeg wax maamulku uga qaban waayo xilka laga xayuubin doono isla markaana shakhsi shaqadaas ka soo bixi kare lasoo magacaabi doono guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulan degdega iskugu yeeray dhankiisa guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxaanuu la wadaagay hanjabaadda iyo canaanta adaga uu kala kulmay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo sheegay in haddii xilka laga qaado dhammaantood guddoomiyaha yimaada iyagana uu xilka ka xayuubin doono sidaas awgeedna loo baahan yahay inay si degdega uga jawaabaan amarka madaxweynaha maamul kastana nadaafadda degmadiisa uu si degdega wax uga qabto sidoo kale guddoomiye amiir wuxuu soo rogay amarro adag oo looga shaqaynayo xaaladaha ammaanka sidoo kalena looga jawaabayo cabashada bulshada si gebi ahaanba meesha looga saaro waxyaabaha carada ka keenay madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamuud dhanka kale kulanka guddoomiyuhu iskugu yeeray guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxaa si weyn loogu canaantay qaar ka mid a guddoomiyaasha oo ka cabanaya musuq maasuq iyo in la boobay mashaariicdii loogu talagalay degmooyinkooda arrintaas oo uu sheegay guddoomiyuhu amaba ku amray inay hoos u dhigaan oo bannaanka aysan usoo bixin xogaha noocan oo kale ah guud ahaan intaasaan kusoo gabagabeynaya wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda daawad hadday tahay markii ugu horreysay ee channelka soo booqato nagu soo biir subscribe doo si share garee saaxiibo badan soo u gaaro tani kulanti dambe ammaan allah